wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane. intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhawaada xubintii kalamaan. xafaayadda Coffee Baby. Coffee Baby saanay ilmaha uga qoslisa. aryaadaha hergeed fadhiya waxa la yiri balaaya beedka ku dhaxtaal banaan ma looga baxsaaha balaaya beedka ku dhaxtaal banaan ma looga baxsaaha haye warnimayo maamaha cusub sidaasi ma ahan waa qaraxan meehil loogu sameeyay loogu tagin meehil loo wado laga celin karo war maamaadiinku ku dheelan bilaayada haba banaadir hadaha gale bullud buruufnaad malanka ay madawa leeri imayo maamaha ku dheelin saas ma ahan bilaayi ku haasata la yiri abbo malowba warnimayo maamaada ku dheelina qarax ka cararid ma ahan oo tagid ma lehe warka badan iska daysaan bugti yeerto wada ku xiranta markii jugi dhacdaba jid hadii la xiro jabhaduna shartiya dhibka joojinayn ama beledka dhani dhagax jiifo iyo jaajuur noqda aryaa ciidanka dawladda dhagaxa ugu daacadsan ka waran musuq maasuqna ma yaqaan eexna ma yaqaan maad fadhiisana weligii ka tagi ma ilaa laga qaado dhaguxu waa askari daacada laakiin wuxuu ku xun yahay baabuurka qaraxa sida iyo baabuurka madaxweynaha ma kala yaqaan warni waalna cayili dhakhtar uu tagay wuxuu yiri doctor waayana culays kaliya noqdo cayilka iga batay dhakhtarku wuxuu yiri subax walba orod ninkii waalna soo gaalgacay maray ayuu dhakhtarku soo wacay wuxuu yiri doctor orodka gaalgacayaan sii marayay ma joojiyo ama sii wada marka waxaan ka baqaa dhagaxyadan si loo wado in gaalgacay lagu geeyo warnimayo horta warkaan ujeedaad ka leedihiin ninka waalana muxuu gaalgacay orodka u laadama meel kale aad u way war wadada shiinuhu iska raacay aryaha adu la yaabay adigu waali hadaa diraysa inta kale u diri lahayd arooda saraakiil abniga sigda baahi loo qabay laakiin madaxweynuhu garsooryaal magacaabay war garsoorayaasha waxa loo baahan yahay inay shabaab suuratul maayida ku dul akhriyaan ka agriyaan dadkii injeey lahaayeen waanahe horta nimayo annagu dhibaataan gacmaheena ku samaynay ayaa dhulka nala gariirisa laakiin Indonesia mid ay bari ka yihiin baa la ruuxaysa oo qadar rabbi ah xasillooni ammaan iyo uur ku taalada ciilku waa labaan islahayn oo kala ay wanaagsane in dhaweyd ba adduunka wax iisaanku la yaabiya amuuraha ka socdeene dadka ee baabuurto Indonesia joogay arlada la yar buubtay abwaankii indhageeliyo ehelkiisa la nool iyo dadka haysta islaamka ilaahow ka badbaadi aryaa xaatir masiibaan gacmaha ku samaysan shabaab maad noo qabtaa shabaab ay qaraxa gacantiisa ku soo sameeyo qarxihaayay war ilaahay mar hore ari dadka walaay gacmoojonka qasbana ma bakridaw waa runta oo dadkaanu waxaysan samaysan kuma dhacaan hadda galmudug hadaan saddex madaxweyne loo samayn lahayn ismaba khilaafteen madaxweynaha kaana lafta gareen wali una diidnaba hadda kaga naani wasiirka gaashaandhiga Kenya jubbada hoose timid laakiin waxaan la yaabanahay Kenya iyo Ethiopia wasiirada gaashaandhiga gabdhay ka dhigteene annaguna balmaan gabar ka dhigana si ay amniga u sugto ilaa ragii wax tari waaye ariyaan nin iyo naag mid rabaan ka dhigtaan xaajubada hoose ka soo jiray korkooda isku soo kudeen ariyadaha waxaan maqlay xaafda kadiya loo dhisayo waa faraxsan yahay duwaligaasna doorashaa ku socoto waa naxsan yahay shariifna waa kii ayaan hore baxay waarana waa tii arrintiisa la xalliyay ee axmed madoobe xaa'udana ilaa iyo hadda asagiyaa khilaafkii ku soo hareeyay war waxaa la yidhi waxaa la xuraynayaa jubbada dhexe caasimaduna waa bu'aalo waad og tahay wasiir omarna waa madaxweynaha jubbaland cabdiraxmaan raabina waa musharax marka maxaa u yaallaa sayid sheekh axmed dhuxul warnimayo horta ayaantan waxaa la isku habaaraa khayrna ku arag farmaajona ku aamus marka sayid sheekh axmed dhuxul ma habaarkaasaa ku dhacay wareedhaa gobolka shabeellada hoose degmada marka waa tii ciidankii 14 Oktoobar la geeyo la yiri waa la xoreynayaa hadda xoreyntii go'doon bay u horseedaa la yiri wax soo gali kara iyo wax ka bixi kara midna ma laha la yiri horaan waxaa loo yiri marka cadday minin awo ismaan martidii moodo munaafiq waaya la yiri marka waa iska joogaale maahine malaga baxayan yirxiixaatay ka tahay marka meelay ka baxaan haday waayaan jidadkii laga haday waa buuba badangala miska dhahaano war wasaaradda gaashaandhiga ee Liibiya bugtada kacday daacisha ka shaal yiri wax nool iyo wax dhinta lama oga war wasaaradda la gala waa Kaabul Afghanistan 43 qofood aan ku dhimatay war naga tag wakaaladda la weeraray waa wakaaladda murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka oo isxalqaan lagu dhisay war maysiina dawladdu haday arbacay tahay shabaab waxay dheen sabdilay baan nahay weerarada qaraxyadana waxay soo qaadaan sabti
kii soobay sabti ayuu dhacay kii naasaflo sabti ayuu dhacay kii madaxtooyada iridkeeda ay ku yimaadeen sabti ayuu dhacay kii wasaaradda amniga ay ku galeen sabti ayuu dhacay kii u dambeeyey ee tiyaatarkiis ka dhacayna sabti ay soo weerareen markaa ma maalmaha la isku haystaa mise dalka yaabnaye aryaadhaha haddii arbiciis ka dhaafto shabaab sabdigan qaraxa mi iska dhaafaa aroo ra'iisul wasaarihii bakistaan nawaad shariif tuugaas noqdaa layidhi lacagaas xadi xabsina waa la geliyaa layidhi gacan ka xoog badana aryaa musuq maasuq badana habartiin miyaa soomaaliya heed war guddoomiyihii degmada yakshiid waay waxa musuqa shaqada looga fariisiyey war waxa suudaan looga bannaanbaxayoo dadka badani ku dhinta waa rooti la'aan war rooti hadday waayeen ma canjeelo dubtaan waryaa ololadahi wareegdalan wal aam waaya anjeere may dibtaan iyo antiniinka leey carawaan waxay tiri alhawaa walbaciid walmeynta khariib ben badana arrimo mawdaa habaabi kara waryaala dad waalan baa tiine ilaahay ka baqa waddankiinana difaaca ratib buubay waa la arki jiray taniso waa roore runta sheega xoolaha barbaaraa sumaal gale oo ilma adeerayaalo qaraxa naga daaye been badana maqalax yaratiya isku mid heer roobkii gubada iga tag roob raafafkaa kaa qooye war saaxiib waxaad rabto waa helaysaa qarax naga daa ruuxa reedda dhige